ninka ku hela wasmo fiican ka hela amiinde soo marka iyadoo inta leeyahay jir qurux kale yaan lay qaban maanta kale yaan lay qaban aniga waxa kama naag gabadheedu yar tahay oo ii sheeg TikTok lagu dhex iibinayo oo laga sheekeynayo aan aqal lahayn naagta fiirsanaysa maxay tahay oo damiir war damiir ma laha war fiiri war damiirka siin waaye maxay tahay ilmaha yarka fiiri ilmaha yarka ma ku weynaado ilaa adduunka hadda waa adduunka social media la maraya moogtaan wax kasta waa adduunka recording haddii la tuso kabaran la dhaho markay iskoolka tagto markay dugsiga tagto haddii la dhaho aabaha iyo hooyada baa raalli kaaga ah bal fiiri wax ku dhigi jireen maxay ku hadlaysaa war ilaahay baan u dhaarshay maxay ku hadlaysaa bal noo sheega de bal waxay ku hadlaysaa noo sheega bal ilmaha yarka maanta ilmaha yarka ilaahay u dhaarshay maxay ku hadlaysaa soo yaabo meeso marka ii sheeg laba mid bay noqonaysaa waan igu celiyay waa riboodeysaan waxa uu qoran lamaanaha caashaqa kow markaa riboodaan ciwaan hadduu soo qaato kale intuusan ku noo gaarin ka gaarsiiya intuuna ku noo gaarsiin ka gaarsiiya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي قيمة إقاية بدن سو دواad ويلكم تفرحية إن أصحابي إن محان إلهي maxaa idin wadaa maanta waxyaalo qaar oo ani aan kasoo yaab aan jeclaa anigan inaan idin la wadaago waxyaalahaasoo ka mid ah asxaabe waa la yaabay mayaa ilaahay waa soomaalida daanahay magacii waa wadanaa diin muslimkaa sheeganaa haddana waxyaala aan ku kaceen waa kaaf iyo kala dheeli muslimada aan lagu dheeloyaa sanadkaa ilaaha wax qabe marka insha allah waxaan rabaa inaan idin la wadaago wiilkan iyo xaaskiisa oo TikTok qabsaday oo subxaana casaa wajal oo waxay doonaa iskaga hadlaayo inaa ilaahu inaa ilayhi raajicuun iyagoo fiyow caafimaadkooda taam ah oo dhimirka aan la-een dad dhimirka laa waa loo dulqaadan karaa dadkan waa dad fiyow ee soo shaqo tegeen waxay usoo shaqo tageen inay naagta macnaa ay ka sheekeyso coorada naagaha ninkan uu ka sheekeeyo coorada ragga ilan Soomaali waxaa la arkay inay wax xun leh fiirsadaan oo wax fiican waxyaalaha oo qeyr badan inay rabin oo xumaanta leh ay raadiyaan subxaanallah wiilkan naagtiisa waxay isku arooseenba ay ku ilmo dhalooyin ama biil ka sugayaanba inay waxyaalaha xun ee nololka raadiyaan si ay wax uga helaan marka ilaahay culeys ha ka saaro wixii kasoo geli lahaa intana dabka allah ku daraan leenahay annakana caafimaadka ay qabaan allah ka qaado intay saa ummadda u baabi'inayaan magaca iyo dadnimada iyo muslimada ay ku dheelayaan insha allah marka asxaabe waxaan jeclahay iga waxay ahaataba waxay rabaan inay ku sheekeysan jireen naagta cawradeeda ay soo qaawin jirtay naaseeda banaanka soo dhigi jirtay hadda ka hor waxaa kasoo hadlay wadaad oo sheekada soomaaliyeed ka mid ah oo si fiican uga hadlay oo yiri xataa hala dilo meesha lagu arko hala dilo cidaan waa dadaan weheli noqonaynin marka asxaabe wixii inta laga baxay maanta waxay mareen inuu gabadhiisa oo 3 sano xataa aan gaarin hadallada uu ku dhahaa ilmahaas marka hooyo aabbaha dadkaasaa dhaleene maxay noqon karaan ilaaha idinku dhaariyay maxay noqon karaan adduun joogo aakhir maxaa aragta ku laaban waay ni adduun joogo maxaa aragta ku laaban marka asxaabteeda qaaliga ee waxaan jeclahay xoogaa inaad soo dhageysatiin garta ilaaha lehe dadkan uwad ma barbaarin karaan dadka uwad ma lagu aamini karaa maandoori ma isticmaalaan reer xashiish lamiyaa ninkii naagta marka ma aqaan ilmaha meelaan munaasib ahayn ka dhashteen ilaahu xafid dadkaana hooyo aabbo waxay noqon doonaan iyagana ilaaha og marka waxaan jeclaa maanta odaygan aqligiisa juusta ah oon jinni qabin oo dhimirkiisa juusta ah dhammaan wuxuu ku hadlaa inaad dhageysatiin hadduu ilaah awood sare ogolaado gabadha wuxuu u dhahaa inaad dhageysatiin insha allah ninka ku hela wasmo fiican ka hela amiinde soo marka iyadoo inta leeyahay ninka ku hela wasmo fiican ka hela amiinde soo marka iyadoo inta leeyahay jir qurux asxaabe waa soo dhageysateena umaleena waxaan soo geliyay in oday gabadha uu dhahay gabadhiisa yariista hadallada uu dhahay dhageysta ilaahan kugu dhaariya ninkaas ma la dhihi karaa waa aabba Soomaalida ma la dhihi karaa aabbayaasha yaa magac loogu dheelin hooyooyinka yaa magac loogu dheelin ilaahu rabbiyo raxmaano soo hanuuni
ilaahow ciddaan biilka ka dhigata inay afxumada iyo aflagaadada iyo dadka xoolo oo futadooda iyo xoolo alaabtooda inay ka sheekeeyaan biil ka dhigteen ilaahow rabbiyo raxmaano naga qabo waxay ummadda qabin allah ku rido ummadda allah ka dhex saaro ilmaha inay baabi'iyaan ugu talagaleen ilmaha ummadda soomaaliyeed inay baabi'iyaan ugu talagaleen ilaahow ka dhex saar ummadda ka dhex saar waxa muslimka ay qabin oo adduunka iyo aakhirab laga ashahaad allah ka dhigo سبحان عسى وجل حسبي الله ونعم وكيل أصحابي waxaan ku qiyaasna ma naqaan dadkan oo saan u hadlaayo maanta waxay maray ilmihii tiktokgii dhanaa kacay dadkii dhan waxay la yaabin yihiin ilmahan yaro aabbaho saas dhahaayo aabbaha wuxuu ku hadlaayo waa wax macquul aan ahayn waa wax akhri ka baxsan subxaan allah maxaan ku qiyaasi karnaa dhimirka muu laayahay maya waa nin caadi laakiin maxaa doqonnimo waay ma la dhihi karo wuxuu rabaa inuu waago saas ugu baryo ugu soo kaco inuu shaqaysto ma rabo yurubta waa laga shaqaystaa ilaa yuruu joogaa meelahaan uu tataagan yahay yaa wadan gaalna waxawaa bariiskaaga cagtaada ku xirantahay ninkan wuxuu rabaa inuu soo kaco iidan ay raalli aga tahay inay gurigaas dhexdiis ay fadhiyaan oo wixii xuno xaraar ay soo qaataan ay sheegaan si ay biil uga helaan biilka saasay u raadsadooyin kaste marka ilaahow subxaana watacaala ummadda ilaahay ma sinee ummaddan siduu shiikha sheega waaye ummadda allah ka dhex qabto siduu shiikha sheega waaye ummadda allah ka dhex qabto wax ummadda ay qabin allah ku rido wax kaloon dhehayna maleh laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliy alcadiim waxaan sheegna mahayno kow dheh waxaan sheegna mahayne ummaddan ilaahay ummadda ha ka dhex bixiyo qoomka adduunyada korkiis ku gadoomi waayo dadkan waa bedelmeen kaala maganka naba magan ilaahaan ka magan galnay iyaga iyo wixii lamid ah oo hadda kadib bulshada kusoo biiri doonto dadkan bulshada allah ka dhex qabto xasbiya allah nimcan wakiil inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waa afkii baa joogda gaba hadal aan ku hadlo ama aan saaro maba haayabo subxaan allah marka asxaabee usoo ducee ilmahaas yarne cid kheyr qabto baariyaal ahoo muslimiin ahoo oo macnaa oo kaalmeeya allah u sahlo kuwaan waalid ma naqdaane waalidkooda u dhaamo oo salaada iyo soonka iyo qur-aanka ilmaha bara allah noo soo saqiro allah usoo adeejiyo allah u keeno ilmaha ilmo xafida allah u keeno allah u keeno haddii ayay leeyihiin iyo awoowi allah usoo gebgebiyo marka waaba rabaan iyaga marka waxay rabaan in maantao dhan wax loo qoro in maantao dhan la daawado in laisku tuurtuuro in subscribe iyo share saas ay ku helaan maalintaan oo dhan laiska daba qayliyo intaasaa iyaga dan ugu jirto intaasay rabaan marka ha u daneynina wixii sheer ilaag siiyo ka naqsada alla dartiis ugu noqsada dadkan diinta ceebeeyeen ijaafo waa ijaafay la wareegayaan ninkan ay naagtiisa afxumada wax saarteen nolosha ilaahow naga qabo yaa rabbi awlaadan ilaahow erid u fur erid kheyr qabto ay ku noolaadaan allah u furo walle meel loo saaro malaha wax aan ku amseelnana ma hayno xasbiya allahu nimcan wakiil waa yaaba ani ma aqaan walaahi waxaan ani keligay maa ummadda dhanaa yaaban meelay u socdaan iyo meelay ka yimideen iyo waxay damacsan yihiin laakiin waa fahmi aan hadda waxaan ku fahmi dad biil raadis waa biil raadis bahalkan waxaa la dhahay ninkii cooridiisoo dhigo iyo ninkii saan cooro ka sheekeynayo iyo kulli suuqay ku leeyihiin xoogaa biibiye ka helayaan marka ninka odaygana saasuu rabaa inuu intasaan biibiye ugu qaato uu shaqo aadinba naagtana ay ku wehliso masiibo meel gaamaha ugu soo baxda intay yacdhii leed odaygan fasahaadsan iyadaa u horseedayso cooradeeda soo baneynayso oo waxay sameyso ka daba sameynaya way ku heshiiyeen mafahmi maalinta qiyaamo naarta jahanamo idinkoon ila wada allah nii keeno biidni illaahi alkariim naarta ku heshiiya ahlu naar yaaliyo xasbi allah nimcan wakiil asxaabteeda madax dhanaaba i xanuun markuu maanta gabadhan wuxuu dhahaya aan maqle aaba madax igu xanuuni inshaa allah bitowfiiq allahna waafajiyo kuwaana allah naga qabto inshaa allah marka asxaabe ani haddan soo noqdee maxaa xasuusti maalintii ay bilaabeysa hadda ma ahayn dad badanaa waxay dhaheen oo shiiqada ay kamid yihiin islaanyihiin waxaa aada wadi dhaaf marka hore waxaa loo maleey jiray inaa oo naagta kalageed le ay taho ninka isku jirin markii naagtii ninkii shiiqa uu la hadlay wax walba uu sheego dhahe
aayad loo qaato waxba la tusi dhinac walba laga tusi weli booskeeda taagan tahay markii la arkay haddana muddo markii ay socoto sheekada oo naagta macna casharayba noogu dhigtayba cashar cadaabta lagaawa oo cashar naareed lagu aqriyay cashar naareed allah ku siiyo dheh ee noogu dhigtay kadibna waxaan arkaa odagaan gafuurka weyn oo oday karaag oo kabajaanka u ego foolxumada badanoo aada u muddo kuwa tii bishada laga soo daaweeyey alkulistaha meel u socday meelka uu ka socda la ogeen ee kusoo darsatay maanta xalimyam oo tiktok aan arkaya nin wuxuu yiri warniyo muslimaa taa mise gaal intuu meesha soo fadhiisto wuxuu dhahay muslimaa mi ashahaataan haye marka haddaa ashahaadato muslimtaasi maxaa naagtaa naaseeda aada u gadgadee ilaan tiktok aad ku gadoosaa naagta naaseeda si laguu fiiriyo laguu celceliyo maanta warniyo waxaas xunyiin iska dhaaf warniyo saanyeel in lagu dhahaa rabtaye maxaa naagta u gadgadayaa layidhi gawaad yaho markaasuu wuxuu yidhi dhilada waxuu jawaabo intuu cabaar aamusnaa iyadaa soo tirno caaye ha u jawaabina iska caay naagta ninka markaasa waxaan islahayn kusoo jawaabay dhilada ku dhashay nye dhila adee ku dhasha oo wicilnimo lagu dhaldhay weliba xasbiyallaahi as caaytama ilan jawaabu ku haya mala mogta xalin gabadhaanuu soo gashtayba asaga lenba ugu cabsada gabadha inuu fuulo wala inaa banaanka loogu imaaneyn asaa ewerka dhigaa ilmihiiskan hawartana waa ka dhala gabartana waa ka dhala waan isku haynaa aragaad ilaan hawartaba hawar qoomuluudka ay ka dambeysaay wax fiican maaha familkan koo dheh ilmahan ummad ilaahay allah u bixiyo oo ka qaada adahan daroogistayaalkii reer xashiish ilmaha allah ugu soo waramo meel kale allah u sahlo oy nolosha ku dhamaystaan ilmahan yar laakiin ninkii naagta waa ninkan waa qoomuluud naagtan waa waxay dhaanta malaa idin sakhraamad waa waxay ogta male asaga inuu ka dhalay xataa ani maba aaminsanib shakiyaaba igu jiro asima ka dhal naagtan isla wareegtaa barnaamadeeda ka keensataa shushubyaalka oo gaalada shushubka ee hoorsataa kanaa loogu magac daraa marka li-ana ilmo oo xalaashaada ah oo adag gibilkaaga kasoo go-een oo shahwadaada xalaasha ah hadalkaas uma aasan quurin hadalkaas ma usu quuri lahayn ilmihiisa laakiin waxaa ogaataa inuu asaga lug ku lahayn oo xabad uu dhalo meesha uu joogin oo kulli shushubka ay ka dhaleen gaalada shushubka iyo bolandeeska iyo adduun kuwaasay hoorsataa ilaa naag waxaan sameynoosa waay koo dheh banaanka inay kasoo shaqeysato waxba raallu ka yahay asaga ma fahmi marka raggii soomaalida heerkaasay marooyin waana joogaan dad oo macnaa nidaamsan oo edib leh oo sharaf leh naago waa joogaan oo ragga dhaamo ilmahooda edib iyo naamus ku korsado laakiin wecel uu dhalaa horaa loo sheegay naagta idaan xalaal ahayn ninka asaga xalaal ahayn xalaal ma dhalaayo cirkii dhulka dee isku yimaadaan laasim waaye waa imaanaa leh shushub waa soo dhexgalaa leh khasab waa insha allah marka waa dambaajiyen kuwaane reer qoomuluud astafurlah alcadiim ilaahu iyo cafi ilmahan owlaad baari ah allah ka dhigo wax tarbiyeyo oo aruursadana oo diintii qur-aanka barane meeshii diintii wax laga bari lahaa ciirsaco ninkii ku kuuntayaa nasiib leh ka alle magan ka nabi magan subxaan casaa wajal salaam yaa khayr waa idin mac salaam